agaasimaha dabagalka mashaariicaha gobolada bariga Soomaaliland Saciid Cabdiraxmaan Jaamac iyo wafdi uu hogaaminayo oo soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ayaa maanta waxay kulan la qaateen barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro iyo madaxda kala duwan ee hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka Sanaag. Kulankan oo saxaafadda dibad joog ah ayaa markii uu soo dhawaaday waxa ka warbixiyay kulankaasi iyo ujeedka safarkooda agaasimaha waaxda dabagalka mashaariicaha ee gobolada bariga Soomaaliland Saciid Cabdiraxmaan Jaamac. ujeedka safarka waxa uu kurgelida gobolada baahida ee Soomaaliya Sanaag bariga si mashaariicda wixii ka qabsoomay waxaan ka qabsoomin dabagal loogu sameeyo research loogu sameeyo cilbaaris loogu sameeyo marka hay'adii ku shaqada lahaa iyo gudoomiyaha gobolka waska wareysanay meel wacan baan soo dhignay warbixintana waa celinayna wixii goboladu ay baahi ay qabaan marka safarka intaas uu ahaa waxaan ka soo bilownay sool baan ka soo bilownay waradaad baan soo maray garadag Ceelafweyn Ceerigaabo haddana waxaan u soconaa Baran iyo Dhaxar ka badan sool maxay galeen safarka inta baahida guud ee gobolada Soomaaliya Sanaag baa la soo dheelitiray la rabo in la ururiyo mashaariic oo dhan marka waxa la wixii mashaariic ka fulay haday fulisay UN-ka haday fuliyeen SDF haday fulisay NGO haday fuliyay community hadii laga fuliyay miisaanada qaranka wixii dhan baa rabaa in la soo baahi tiro la soo miisaamo 20 kala sameeyo qaabeen fiican oo magaalada wixii saayid ku ah aan hadii saddex iskuul ka dhisnayd oo laba iska xidhantaan iskuul dambe laga dhisnay laga dhiso sawirada hilib ama MCH ama rug caafimaad oo kale ama xagga biyaha kale in qaab noocaas oo kala la soo dheelitiro. Yunus Sheekh Ahmed, Universal TV, Ceerigaabo.